waxa uu ahaa uga aysasaaka u kala harin maamulka iyo shaqaalaha fulinta dawladda hoose magaalada Boorama hawlgalkani oo lagu banaaneeyay cidhiidhi ka jiray bacdaha qadiimiga magaalada si isku socodka bulshada loo fudaydiyo waxa halkani ku ganacsan jiray dad u badan yar oo subax kasta u soo risiq doonan jiray inkastoo xilligan Toobaleenku ku hagaagay maamulka dawladda hoose magaalada Boorama oo horkacayo maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi iyo xogayaha fulinta dawladda hoose magaalada ayaa goobjoog ka ahaa hawlgalkani meesha looga saarayay cidhiidhiga wadada dhexmari doonta bacdaha qadiimiga ee hangarka magaalada Boorama mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale waxay waxba ka majraan ay ku tilmaameen warar maalmihii ugu dambeeyay soo baxay oo sheegayay in hangarka qadiimiga ee bacdaha magaalada Boorama la iibiyay mas'uuliyiintan ayaa sheegay in halkan laga dhisi doono guryo ay leedahay dawladdu isla markaana laga kareyn doono kaliya dadkii halkan ku ganacsan jiray markii hawlgalkaasi uu soo dhamaaday halkan oo ah hawlka dawladda hoose magaalada Boorama shiruu ku dhaxmaray maamulka iyo shaqaalaha dawladda hoose magaalada Boorama si loo qiimeeyo fulinta hawlgaladii saaka la fuliyay isla markaana shaqaalaha loo dhiirigeliyo sida ay faahfaahinta ay ku bixiyeen xogayaha fulinta dawladda hoose magaalada Boorama Maxamed Aadan Ibraahim يبقى magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi waxa howlkan ugu soo noqonay maanta hawlgalkii saaka aynu bilownay inaynu dib u eegno wixii noo qabsoomay isla markaana bulshadana aynu ka saarno tashwiishka la dhex wareegayo maalmahan aynu ku jirnay hawlgalka number 1 dadweynaha waxaan u sheegaynaa ujeedada laga leeyahay hawlgalkan waxa weey mid ka qayb ah barnaamijyada horumarinta bilicda magaalada isla markaana iyo kordhinta dakhliga ee maamulka dawladda hoose uu jideeyay in uu sanadkan 2021 hirgeliyo dad baa warxmatashiila ayaa hadallo suuqa geliyay kuwaasoo la leeyahay meesha waa la iibiyay waxaan horta halkan ka cadaynaynaa meel la iibiyay inaanay jirin lamana iibin doono waxa weeye meeshaasi waa la dhisayaa meel qurux badan oo bilicdii magaalada wax ku soo kordhisa isla markaana dadka qof kasta oo meel ku ganacsanayay marka la dhiso ee halka fooq laga dhigo moola waxa uu noqon doonaa meel uu qofku kreysto oo uu halka ku ganacsado doonaynaa inaynu qancino dadkeena oo aynu ka saarno tashwiishka lagu furay maadoo TV-gaanu ka daawanay dumar cabanaya oo fariiq khaldan la gaarsiiyay waan saragnay maanta waan isqancinay sida media-ga ka muuqatay dumarku waxay yiraahdeen wax khaldan baa noo sheegay raali ahaada waxaan isla qaadanay inaanu bilicda ka wada shaqeyno waxaan isla qaadanay inaanu wacyigelinta ka wada shaqeyno waxaan isla qaadanay marka meeshaas dhisantay la qurxiyo inuu qof walba halkiisii galo awalba kiraan ka qaadi jiray kirada u baahnay markaan laga qaadaya iyadoo wali meel qurux badan iyo ku jira taawaan isla qaadanay dumarkii waana naga raali geliyeen hadalkii hore media ka bax waxaan anaguna u ballan qaaday qof kasta halkii ku jiray oo loo qurxiyay inuu gari doono duleeda bacdaha aynu maanta duwinayna hangar waa kii Ingiriiskii caasimadii labaadna aynu sheeganaynaa jiingadii Ingiriiskii dhisayna maanta halkii ayna waxay maraysaa waa jiingadii berigii Toobaleenka la sameeyay bila rafle berigii uu sameeyay jiingadii la dhisay way dawaynu koraynaa magaalada ogtiina halkay marayso kuma deyn karno inay sidaas ahaato meel indhahana u roon umada cidii aragtaana ay hor joogsan karto ayaynu doonaynaa haduu Ilaahay yiraahdo inaanu meesha ka dhisno wax iib la yiraahdaana ma jiro markaanu meesha banayno ganacsatada loo bandhigayaa guryaha dawladda hoosaale dhulka dawladda leh awal bakiraan ayaa ka qaadi jirnay bulshada waxaynu doonaynaa markaa dhismahaasi inuu noqdo dhismo anfacad dadkii marka horeba ku shaqaysanayay shaqaduna sidaas ay noogu soconaysaa ziga sabaatay mas'uuliyiinta dawladda hoose magaalada Boorama ayaa sheegay in halkaasi ay ka sii wadayaan hawlgallada lagu baneynayo wadooyinka xidhmay isla markaana kor loogu qaadayo bilicda guud ee magaalada waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga ee Ariel TV Boorama.